Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Soo dhowaada asxaabta. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa macluumaad ku saabsan saaxiibtinimada. Haddaba ku soo dhowaada muuqaalka. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa kariimka ku leeyahay ruuxii uu shaydaan u noqdaa saaxiib ayaa leh saaxiibka ugu xun. Halkani waxaad ka garan kartaa in noloshu ay qayb weyn ku leeyihiin saaxiibadu. Haddii ay saaxiibadu noqdaan kuwo wanaagsan, waxay helayaan raalli ahaansho Alleh iyo wanaag badan. Haddiise ay noqdaan kuwo xun oo iskugu yeera ama ku saaxiiba xumaan, waxay hooy u noqonayaan sharta iyo halaaga. Rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu inagu dhiirigelinayaa inaan yeelano saaxiibo wanaagsan kana dheeraano saaxiibada xun. Ogow inuu yiri rasuulkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaa jira 7 ruux oo Allah harkiisa geli doonaan maalinta qiyaame, marka aanay jirin meel kale oo la harsadaa ilaa harka Alla mooye. Waxaana 7daasi ka mid ah 2 ruux oo Alla dartiisa u saaxiibay kuna kala tagay ilaa iyo maalinta qiyaame. Haddaba haddii ay sidaa tahay, waxaa waajib inaga saaran yahay in dadka aan la saaxiibeyno ay noqdaan dad wanaagsan oo leh calaamado wanaagsan. Haddii kale, ogow in ruux xun oo aad la saaxiibtaa in ay kuu horseedayso hoog iyo halaag. Haddaba waxaan rabnaa inaan halkan ku xusno xoogaa yar oo ku saabsan astaamaha saaxiibka wanaagsan. Haddaba waxaa ka mid ah, saaxiibka wanaagsani waa kan kula farxaa haddii aad faraxsan tahay, wuxuuna kula murugoodaa goortii aad murugaysan tahay. Saaxiibka wanaagsani waxaa had iyo jeer ku aragtaa meelaha khayrka sida masaajidda, majaalista cilmiga, goobaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha wanaagga. Saaxiibka wanaagsani waa mid kuu xifdiya sirtaada, mana faafiyo waxa adiga kugu saabsan ee aad ku aamintay. Waayo waxaa la samaystaa saaxiib wacan oo aad ku nafisto markaad caroonayso iyo markaad murugoonayso. Saaxiibka wanaagsani wuxuu u qariyaa ceebahaaga, waxaana uu muujiyaa wanaaggaaga. Saaxiibka wanaagsani waa kan ku qabtaa ama ku celiya markaad carooto, kuna dejiya. Wuxuu had iyo jeer ku xasuusiyaa geerida iyo Alla ka cabsiga iyo maalinta qiyaame. Waxaan u maleynayaa in intaasi nagu filan tahay tusaale ku saabsan saaxiibka wacan ama sifaha lagu garto saaxiibka wacan. Haddaba daawade, lagama maarmo nolosha saaxiib wacan. Waxaan u maleynayaa in intaasi nagu filan tahay tusaale ku saabsan saaxiibka wacan ama sifaha lagu garto saaxiibka wacan. Haddaba daawade, lagama maarmo nolosha saaxiib wacan. Laakiin saaxiibka aad dooranayso ha ahaada mid ku anfaco if iyo aakhiraba. Waayo waxaa laga yaabaa wax aadan u sheegi karin waalidka, walaalada, inaad u sheegto saaxiibkaaga. Waayo dadka wuu kaaga duwan yahay. Waxaan kugula talinayaa daawade inaad raacdo saaxiib wacan intaad adduunkani ku nooshahay. Waxaa kaloo halkan ku xusi doonaa saaxiibka xun iyo sifaha lagu garan karo. Saaxiibka xun wuxuu kugu yeeraa goobaha xumaanta lagu sameeyo. Saaxiibka xun wuxuu ku sifaysan yahay dantiisa yaqaane ee dantaadaba kama taliyo. Saaxiibka xun waa kan marka aad maqan tahay xumaantaada faafiyo. Saaxiibka xun waa midka aan jeclaynin in aad horumar gaadho. Saaxiibka xun waa midka ka naxa markaad noloshaada heer sare aad ka gaadho ama wax aad ku soo kordhiso. Saaxiibka xun waa mid aan ku soo booqanin markaad xanuunsan tahay. Saaxiibka xun waa mid aan damba ka yeelanin marka ay dhibaato ku soo gaadho ama marka aad guul gaadho noloshaada. Saaxiibka xun wuxuu kula saaxiibay howl adduunyo iyo lacag ama dano u gaar ah. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad sifahan kor ku soo sheegnay in uu saaxiibkaaga leeyahay oo aad istiraahdo kaga go' astaamahan dartooda. Laakiin waxaad isku daydaa inaad saaxiibkaaga ku waaniso sifaha wacan ama wixii uu ku gaari karo guul if iyo aakhiraba. Waxa aad la jeceshahay naftaada, saaxiibkaadana la jeclow. Iska ilaali saaxiibada xun ama nolosha ka dhacay inaad wax badan ag joogto ama aad raacdo. Ogow ayagana way ku saameyn karaan. Haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada ama cidlada, hadda ka cabso in ay saaxiibo kula noqdaan dad xun. Waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah, meel kastoo aad adduunka kaga nooshihiin. Wixii talo iyo tusaale ah waxaad inagugu reebi kartaan ama nagu soo qori kartaan qaybta kommentiga. Mahadsanidin.